وأمين هذه القارئة وسند مولدي قنطر السقارات أو على كيبوري أو صومالي حرية كيبوري صومالي هميك اللي طلعني أنا هو شغلي ضد أنا شغلي ما ماشي طبيعي أنا صومالي ولا صاروا markii ugu horeysay yahay saacadan konton iyo 9 sano ayaa ka soo wareegtay midnimo waxaa loo gudbay kowdii luulyo ayadoo aan u soo socotaa mudanayaal iyo marwooyin inkastoo aan markii hore xusin dadka meesha fadhiya dhammaantiin horta salaamantay iyadaa leeyahaada فرحنا همين كلحنا كيبا يا إلبني مركز قدومي كوريا كمان أنا كسرني يوم قدومي هبارلمان كي وزيرها اللي معنا دمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدة يعني مروي لحنا كي كونتري سياسة كسوريتي إن كسو Soomaaliya waxaa aasaasay xisbigii Israel 13 wiil oo dhalinyaro oo laga yaabo midkoodna inuu sanduuqsi saraxa taagan maanta oo kumayaal PhD haysta joogto oo kumayaal hawlka ilaa 1 milyan oo jaamacad ka soo baxday ama jaamacad dhigata joogto Soomaaliya maanta oo sidaa iyo foolxumada ku jirno aad iyo aad ay sidarrada إلهي وحكاية شيء يا إلهي من لماذا نرسل اليوم إلهي تبتل الرحمن اليوم إلهي أمضي نحمارك على وصل الكفرة عن لصو الله منه من لماذا إني إيو حرية إني الوضع صوماليا ما أنتي أريد الوضع كبير حرية دي واحد سنة لكن حرية قلفوفة عن سنة حرية دو ما هي سنة حرية أن مارك الجواب وكل قانون هاي بنشوفنا حرية سكر صومي بنشوفنا حرية كل هل كل رمضان اللي يا هيسنا مركب واحد هركنا حرية وما هو حرية القفوفة والحرية القفوفة كسر رمضان كانوا شغالين ومدينا نسود وله وضد الصوماليين وضدنا في المغربية أما يدعونا يوم waxaan idinka rajaynaynaa in qof waliba qofka kala sabro si loo gaaro wax wanaagsan haddii arrintaa uga baxo intaa dowladda Soomaaliya hadda jirta annaga galmudugga intaa soo sheegay ugu liidana waxaan ilaahay ka rajaynayaa caawa dadka halkan fadhiya oo siyaasiyiinta iyo xildhibaanada iyo odayaasha iyo dhalinyarada iyo aqoon-yahanada inta caawa halkaan fadhida qof walba inuu u istaago sidii galmudug wuxuu noqon lahay galmudug way ragaaday dhib badan baa ku dhacay dhibkaa ku dhacay inay ka soo kabsato in la isku safro oo qof waliba maaragtay dhinaciisa ka dhagto ayuunbaa loo baahaya in aad iyo aad aan uga shaqayno in dadka la heshiisiiyo hadda shirweynaha horyood oo kale inaan aad iyo aad u taageernaan loo baahan yahay mid kaloo ka sii weyn inaan qabanaan loo baahan yahay wax walba inaan ka shaqayno oo u istaagno annagoo midaysan oo gacmaha isaysanaa loo baahan yahay war siyaasi iyo dhaqan dhalinyaro rag iyo dumar waa inaanan u kala haday si aan gobolkayga ugu qaban gobolkayga aan u istaagno gobolkayga aan u shaqayno ilaahay khayr ha siiyo wax wanaagsan ayaan rajaynaynaa inta ummadda Soomaaliyeed oo maqlayso kaloo waxaan idinka codsanaynaa inta ay lagu guubaabsaan annaga galmudugheena aan isku guubaabino ku tagadiishiisa ka dhigno saan ummadda uga daba teginahay waqtigii baa dhammaaday aad iyo aad baad u mahadsan tihiin saacaddii calanka la saarayaa la joogaa bannaankaan isugu tegaynaa